بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة القدر مكية وآياتها 15 كنعاوح كبلابنها يا سورة الليلة سورة القدر. سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة داس أيو 10 كنعاوح كبلابنها يا إن شاء الله. سورة دان مقعيدا وحا الليلة هداه سورة القدر بالو يقانا وانا قرآن كقيبت مكي الليرابي كمتها هيو نبينا عليه الصلاة والسلام انتو سنسوه ترونين كهر بيكسو دقوتي وآياتها 5 آيات كيدنا وشن آيضات وحين سورة داني كهضشا عن بدء نسول القرآن قرآن كسو دقو شدي سيبي كهضشا هبين كوب باللوضي وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور ليلة القدر كالليلة ذو أي كهذا الشاء أي كفضل بدنته مالمها بلها أوقات ودنها بينك أو فضلك بدن أعتيبك بك هذا الشاء ولما فيها من الأنوار والتجليات القدسية والنفحات الربانية التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين تكريما لنزول القرآن المبين كما تتحدث عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر فيا الله من ليلة عظيمة القدر هي خير عند الله من 1000 شهر وهبين آدو بركبضا وهبين كي قرآن كسود قود ليلة القدر مركا ليلة القدر كاسبي كهذا شاسورة داني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنغو أنزلنا وحان سود جني هو قرآن كأيان سود جنبو إلهي في ليلة القدر شرفتها بين كذا وما أدراك محاكو غيسي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما ليلة القدر شرفتها بين كذا وحيتهي ليلة القدر شرفتها بين كذا خير ومتك خير بدن من 1000 شهر كن بلاد oon habeenkaasi ku jirin bay ka fadli badan tahay tanazzalu waxaa soo degdeganaysa almalaa'ikatu malaa'igta iyo waruuxu jibriil fiihaa habeenkaa dhexdiisay soo degoodaan biidni rabbihim rabbigooda idankiisay ku soo degoodaan min kulli amrin amar kulligiis bay la soo degoon hayaan salaamun hiya habeenkaasi salaamun ونبتقليو حتى مطلع الفجر إلى مطلع الفجر إلا قرحضو أي فجر أو صلاة كعداته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إلهي مقعيس الله سوى الرحمن نحريست عام كأن نحريسته الرحيم نحريست قارهانيد نحريستان أبتدئ قبل لابن هيا مقعيس ليل إنا أنه أنزلناه قرآنك وحان سود جني في ليلة القدر شرفتها بين كذا وما أدراك محاكو غيسيي ما ليلة القدر شرفتها بين كذا وحيتهي ليلة القدر شرفتها بين كذا خير ومتك خير بدن من 1000 شهر كن بلاد تنزل وحا سود قوته الملائكة ملائكة والروح جبريل فيها هبينك دحدي سبي سود قودان بإذن ربهم ربigooda idankiisii la soo degoodaan ay ku soo degoodaan min kulli amar kulligiis bayna la soo degoodaan salaamun hiya habeenkaa u soo hormari hiya habeenkaasi salaamun nabadgelyo weeye xataa madlaci alfajri ilaa salaada ay ka caddaato waa habeen nabadgelyo ah waxa weeye maalinkeeda ilaa laga bilaabo salaada laga gaaro waxa weeyaan waxay noqonaysaa habeen asaga dhan nabadgelyo ah hadda suuradaani waxay ka hadashaa laylatul qadar bay ka hadashaa laylatul qadarku waa habeen aad u fadli badan waa habeen aad u baraka badan waa habeen aad u sharaf badan laylatul qadar waxa laylatul qadri loogu magacaabay waa sharafta uu leeyahay waa sharafta iyo barakada uu leeyahay waa weyninka iyo qaymaha rabbi agtiisa uu ku leeyahay waa laylada la qadarana waa la yiri
wax kasta oo dhici doona min haadihi sana ila sanati alqaabila sanadkaas iyo sanadka ku soo aadan inta ka dhaxayda waa wax kasta oo dhacaya baa la qadaraa layladan laylatulqadarka la yidhaahdo laylatulqadriga la yidhaahdo waa layladii ilaahay qur-aanka soo dejiyey sida ilaahay aayaddan uu nagu leeyahay innaa annagu anzalnaahu fii laylati alqadri qur-aanka waxaan soo dejinnay habeenka laylatulqadar la yidhaha baan soo dejinnay hadda laylatulqadar ayaa qur-aanka la soo dejiyey bisha ramadaan ayaa qur-aanka la soo dejiyey nabiyullaahi moxamed ayaa lagu soo dejiyey ummatulmuxamadiya loo soo dejiyey makal mukarama nabigoo joogaa lagu soo dejiyey ummadii ugu khayr badneed baa loo soo dejiyey waxa weeye layladan marka waa laylo barakaysan waxay ka khayr badan tahay laylatulqadarku 1000 bilood oo markii loo bedelo sanadka gaaraysa 83 sano iyo 4 shuhuur 83 sano iyo 4 bilood habeen intaas ka la-eg 1000 bilood oo intaas la-eg ayay halkaan habeen oo ka sii fadli badan yahay laylatulqadarka sababtii ay ku soo degootay suuradaani oo nabiga calayhi salaatu wasalaam layladan barakada badan loo siiyey waxaa la yidhaahday waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku uu sheegay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nin xirtay nabiga waxaa loo waxyoodoo loo sheegay nin wada jiray baa la yidhi labis hub ayuu wada jiray jidka ilaahay buu ku duuli jiray wuxuu nabigu waxaa la wariyey nabiga inuu ogaaday calayhi salaatu wasalaam nin ka mida reer banu israa'iil oo jihaad 1000 sano jihaad ku jiray oo 1000 sano hub watay oo intaa jihaad ku jiray markaasuu rasuulku la yaabay markii arrintaas ilaahay u sheegay muslimiintiina arrintaas bay la cajabeen watamannaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam liummatihi nabiguna ummadiisa wuxuu la jeclaaday ilaahay inuu darajo waaweyn gaarsiiyo markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rabbi jacalta ummatii akhsara alumam acmaaran wa aqallihaa acmaalan ilaahayow ummaddayda waxaad ka yeeshay ummadaha midda ugu cumriga gaaban midda ugu camalka yal bayna noqonayaan camalka yar marka aniga ummaddayda waxaan la rabaa wanaag inay gaaraan fa acdaahu allaahu laylata alqadri markaasuu ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey layladan sharafta badan ayuu siiyey markaas ayaa la yidhi laylatulqadri khayrun laka waliummatika min 1000 shahrin jaahada fiiha dalika arajul waxay layladaanu uga fadli badan tahaa lagu yidhi 1000 bilood oo ninkaasu jihaadka ku jiray baa la yidhi habeenkan baa kaaga fadli badan adiga iyo ummadaada 1000 bilood oo ninkaa israa'iiliga ah reer banu israa'iil oo duulaan ku jiray ummadaada halkaas habeen oon siinay baa ka fadli badan hadda habeenkaa wuxuu yidhi imaamulmujaahid camaluhaa wa siyaamuhaa wa qiyaamuhaa khayrun min 1000 shahra habeenkan camalfalka la sameeyo soonka maalinkiisa la sameeyo qiyaamka iyo salaatuleylka habeenkaas lala yimaado acmaasha la sameeyaa waxay ka fadli badan tahay 1000 bilood oon laylatulqadar ku jirin wixii la sameeyo halkaas habeen ayaa ka fadli badan habeenkan laylatulqadarka ah wuxuu ku jiraa habeenada fadliga badan habeenkii nabigeennu oo islaamka taariikhda waaweyn kule buu ku jiraa habeenkii nabigeennu dhashay calayhi salaatu wasalaam habeenada waaweyn oo taariikhda laga yaqaano oo waxa weeye xaadisaadka cajiibka ah oo waxa weeye muslimiinta taariikhda ugu jirta ayuu ku jiraa habeenka laylatulqadarka habeen barakaysan oo muslimiinta u xisaaban buu ku jiraa habeenkii nabiga la dheelmiyey habeenada waaweyn oo taariikhda leh buu ku jiraa habeenka carafo habeenka carafo maalinkeeda la istaaga iyo maalinka carafaba habeenada waaweyn bay ku jiraan habeenka jumcadaahu waa habeen barako badan habeenada waaweyn buu ku jiraa bisha shacbaan niskeeda habeenka ah habeenada waaweyn buu ku jiraa habeenada ciidu habeenada waaweyn bay ku jiraan waa habeena kulligood taariikhda ku leh macnaha xusitaan iyo magac ku leh maalinka carafo maalmaha waaweyn oo cajiibkaa buu ku jiraa maalinka jumcadu maalmaha cajiibka badan buu ku jiraa
habeen iyo maalin markii la isgarab dhigo habeenka ayaa fadli badan marka habeenkan laylatul qadarka sidaas baa lagu tilmaamay quraanka ayaa soo degooday hadda quraanka inna anzalnahu fi laylatil qadri baa la yiri aayad kalena ilaahay wuxuu ku yiri inna anzalnahu fi laylatin mubarakah aayad kale suuratul baqara ku jirana ilaahay wuxuu yiri shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ila aakhir al-aayah quraanka ramadaan baan soo dejinay aayadan ilaahay wuxuu nagu leeyahay laylatul qadr quraanka soo dejinay aayad kalena ilaahay wuxuu yiri inna anzalnahu fi laylatin mubarakah quraanka habeen barakaysan baan soo dejinay marka sida looga hadlaa waxa weeye quraankana sida taariikhda la og yahay 23 sano ayuu ku soo dagoonayay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam 13 sano nabigu markii rasuul laga dhigay Makal Mukarrama ayuu rasuulku joogay kaleey salaatu wasalaam 40 sano ayuu umrigiisu marayay quraanka ayaa lagu soo dejiyay 13 sano ayuu Makka diinta ku faafinay waa hijroodo Madiina ayuu u wareegay 10 sano ayuu diinta faafinay oo quraanku ku soo dagoonay quraanku isku dar 23 sano muddo gaaraysa ayuu soo dagoonay sida ay sheegaan saxaabtii nabigu cadeeyeen sida Abdullah ibn Abbas iyo marka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la yiraahdaa quraanka waxa la soo dejiyay lawhul mahfuudka laga soo qaaday kulligii asagoo kulansan habeen laylatul qadr ayaa quraanka la soo dejiyay lawhul mahfuudka laga soo qaaday ka soo qaadeen malaa'iktu meel la yiraahdo baytul issa oo samaa dunya todobada samo midaan u sokayda meel ku sugan bay malaa'iktu keeneen ka bacdina jibriil baa 23 sano hadba aayadii xukunkii loo baahdo ayuu soo qaadaya baa la yiri oo nabiga kaleey salaatu wasalaam ayuu ku soo dejinay anzala Allahu alqur'ana jumlatan waahidah min al-lawh al-mahfuz ila bayt al-'issa min as-samaa'i ad-dunya thumma nazzala mufassalan bihasab al-waqa'i' fi 23 sana ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam sidaas ay taariikhuhu cadeeyeen sidaas ay mufassiriintu cadeeyeen hadaba layladan laylatul qadarka waa habeenkii quraanka la soo dejiyay waxa la yiri quraanka habeenada habeenkii ugu fadliga badnaay ayaa la soo dejiyay waa laylatul qadri quraanka bilaha bishii ugu fadliga badneed ayaa la soo dejiyay waa bisha ramadaan quraanka waxa lagu soo dejiyay ambiyada nabiga ugu fadliga badnaa waa nabiyullaahi Muhammad kaleey salaatu wasalaam quraanka waxa la soo dejiyay magaaladii ugu fadliga badneed nabigu asagoo jooga kaleey salaatu wasalaam waa Makal Mukarrama quraanka waxa loo soo dejiyay ummadii ugu fadliga badneed waa ummatul muhammadiyya ilaahay 70 ummadood ayuu abuuray soo saaray yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam ummadan ayaana ugu khayr badan sida ilaahay quraanka uu ku cadeeyay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ayu ilaahay yiraahday quraanka marka ummadii ugu fadliga badneed baa loo soo dejiyay hadda bilaha bishii ugu fadliga badneedna waa la soo dejiyay habeenada habeenkii ugu fadliga badnayna waa la soo dejiyay magaaladii ugu fadliga badneed nabigu jooga lagu soo dejiyay nabiyaalka nabiga ugu fadliga badnayna waa lagu soo dul dejiyay intaas oo darajo ayuu isku soo maraa waa kalaamullah lawhul mahfuud buu ku sugan yahay jibriil baa ka soo qaaday nabi Muhammad buu soo maray kaleey salaatu wasalaam oo soo waxyooday markaas uu nabiguna ummadda u soo gudbiyay kaleey salaatu wasalaam sidaas ayuu quraanka marka taariikhdiisu ay tahay layladan laylatul qadri baa la yiraahdaa waxay ka fadli badan tahay laylatul qadarku acmaasha aad samaydo salaatul leylka lala yimaado akhriska quraanka oo la akhriyo ilaah tuuga lala yimaado nooleynta habeenkaas la nooleeyo hadiiba ilaahayba ku waafajiyo oo habeenkan ilaahayba oo ku waafajiyo waxay ka fadli badan tahay 1000 bilood buu ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala 1000 bilood oo aysan ku jirin layladani ay ka fadli badan tahay fadligaasna waxay ku heshay baa la yiri saddex waj
ayuu ilaahay ku tilmaamay fadligeeda laylatul qadri khayrun min 1000 shahrin kun bilood ay ka fadli badanta ayuu ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala kun bilood bay ka fadli badan tahay baa la yiri darajada kale waxa lagu tilmaamay tanazzalu al malaa'ikatu war ruuhu fiha baa la yiri malaa'ikta ayaa soo dagoota waa darajo kale darajada saddexaad waxa lagu tilmaamay fadligeeda salaamun hiya hatta madlac al fajr baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala ila waagu kabariyo waa habeen nabadgelyo marka laylatul qadarka aad baa loo amaanay wanaageeda hada waxa la yiri kun kan bilood hadii la xisaabiyo in mise sana ayuu noqonayaa wuxuu noqonayaa oo lagu qadaray 83 sano 83 sano iyo 4 bilood oo u dhikama kun bilood markii la xadeeyo intaas u dhikama habeenkan marka waxa weeye laylatul qadarka la yiraahdo wuxuu ku dhex qarsoon yahay bisha ramadaan baa lagu dhex qariyay soddonkeeda si loo dadaalo habeen gooniyo la yiraahdo habeen hebel hadii la oran lahay waa habeen hebel laylatul qadarku qof walba habeenkaas sugan lahay baa la yiri bisha dhanba si loo dadaalo waa lagu dhex qariyay laakiin nabigeenu alayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ayuu aad ugu sii dadaali jiray waliba tobanka dambe tirada isdheer 21 23 25 27 29 habeenada tirada isdheerka ah aad uga raadiyay buu ku dadaala laylatul qadriga habeenka 21 koobaad iyo habeenka 27 gaar ahaan waa labada habeen oo ay madi islaamku ay dhaheen laylatul qadarka aad baa loogu maleynaya marka bisha ramadaan waa bil aad u barakaysan oo ilaahay xaqiisa baraka weyn ka leh oo dunuubta lagu mayro oo laylatul qadar lagu dhex qariyay habeenkaas waxa weeye qofku bisha dhan inuu dadaalo ayay shariicadu amartay si habeenkaas ilaahay u waafajiyo habeenkaas hadii ilaahay ku waafajiyo oo ilaahay ku dareensiyo waxyaabaha lagu dareemo habeenkan laylatul qadar inuu yahay waxa kamida mana kulula leeyahay habeenkaasi mana qabow badna subaxeedana qorraxdu waxay soo baxdaa ayadoo iftiimayda oo shucaac lahayn ay soo baxdaa baa leeyahay habeenkaas waa habeen nabadgelyo ah Aisha waxay ku tiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow in calimtu laylatul qadri ma aqulu fiha hadaan layladaas ogaado maxaan dhahaa bay tiri markaasuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam quli waxa tiraahdaa اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم إلهيو اللهم يا الله إنك عضو عفو مد عفين بدن بات كريم إله ونكسن أو ديق بدن بات تحب العفو عفين تنوات عشها فاعف عني إله السكي عفو دهبو يري أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي أيضا وابن حبان علماء السنن كأي صار هيان مركا وحوي حديث واسداس وحديث صحيحة نبي عليه الصلاة والسلام أقرب الدعاء داس حبي إلهي الليلة دا كوافتيه ليلة داس مركا ليلة القدر كالليلة هدو وحالو دحقرية رمضان كوردن ولا دداله habeenka ugu dambeeyay dadaal hayslihin bisha dhanba waxa suurtagal ah waxa weeye inay habeenka hore ku jiro 10 ka hore inay ku dhex qarsoon tahay 10 ka dhexe 10 ka dambe mid ay tahay Allahu a'lam iska dadaalkeeda iyo nooleynteedana waxa lagu nooleeyay salaad baa kamid ah hadaa salaad kan karto jamaacadiyo lagu dadaalo quraankiyo kaleeto hadaad waxa weeye istighfaarti akhrido hadaad la ilaaha illa allah di badiso hadaad salliga rasuulka akhrido alayhi salatu wasalaam subhanallah idi hadaad badido alhamdulillah idi oo kaleeto takbiirti oo kale wixii khayr oo dhan ku noolay cilmiga oo kaleeto kutubti iska raaco daraasadii iska dhageyso waa nooleyntiiba kamid tahay qofku markuu cilmiga dhageysanayo markuu cilmiga akhrinayo markuu cilmiga akhrisanayo markuu quraankii akhrinayo markuu quraankii akhrisanayo markii salaadii uu tukanayo markuu dhikriga ilaahay uu ku jiro markuu salaad iyo salaatul layl iyo sunnadii wado
كل جود وإنه خير كجرة مال إلهي رادك يه وإنه كجرة مال إلهي فعل إلهي رادك يه وإنه الصمين يه هذا بوحى لي ليلة القدر حلو قري وحلو قري سير رمضان كودن بلود داله ليلة القدر رمضان كالو دح قريه بالليل ساعة الليلة ساعة الإجابة يوم الجمعة أفر إلى 20 ساعة الإجابة كتشدو نبي عليه الصلاة والسلام وإلهي هضوك وافتيو أضو ضاع كتشره إلهي أكو أقبليه سأفر إلى 20 ساعة الجمعة اللود داله والو دح قري صلاة شنت صلاة صلاة الليلة صلاة الوسطى وفضل البدن اللو دح قري عصر كبه اللو تلمامو سيدا اللو بدنها لكن شنت صلاة باللو دح قري سقاشن إيا سقال كمقعو إلهي اسم ليرا اسم الله الأعظم وهدي آد إلهي كتوكته إلهي أوكو أقبل يالغو دحقري سي سقاشن إيا سقال كمقعو إلهي اللوغو توغو إلهي راد النقشديس ضاعات كيسو رن آلغو دحقري انت ضاعات كيس أقبريسو مدى السنة إيا مدى واجب كأه مدى إلهي رادك هذا نقول الله أعلم كل قوت سياد قد داش وضاعوين كدن لو قد داش ربها إلهي بالغو دحقري عرض إلهي معاصدي سالغو دحقري محايل الذنوب تورن مركا سمينيسو مد إلهي كاغا عرونا ما أجد كل قد بكفقاو سياد وقفقا توالغو دحقري قيام الساعة مركيش قيامته دعيده ساعة هبلي إيمان الله مردهن حكمة اللو قرية وحاكمده سي داعات كودن لو قد دالو ليجتهدوا في الداعات حذرا من قيامها مال والبسيقفك وسكير أمي بر قيامة دعبه أي ساعة دعي لقري ليلة القدر طبنك الدم مركي اللي جاره وحان ربا رمضانك طبنك الدم مركي اللي جاره عائشة وحيتر رضي الله عنها وحوها الرسول كانوا عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة كله وأيقظ أهله وشد المئزر بيتري طبنك الدم رمضان كمركي اللي جاره نبي عليه الصلاة والسلام هبين كي يردن ضاعوا كنوا ليتري أهل كيسو برارجو جري مرضى أيو أتكيسن جري ضاعاتك أيو أوحان جيرا جري واددالي جري طبعا كدام بوحو النبي قددالي جري انتي هور الددال أوسن ددالين رمضان كمركا لقارنا الصدقاء النبي وحو قدك دق بدناي ضبايشا وحوي حقايوتكو كلا وكسي أرض بدناي صدقاء وبدي جري قرآن أخرسكو وبدي جري توبكينكو وبدي جري مركا بشاسو وبشا مؤمنينتو أي ريبح الله في رسدان dadka ganacsadaahu markii ganacsigoodu oo si fiican badeecadu ay u yeelato oo markaan oo kale ay lacag badan lagu dhifo karo oo ay lacag badan ka helayaan xoolahooda la sugtaan iibiyaan mu'miniintana ribaxooda ramadaanka ay ribaxa dhan oo faraha badan ay helaan marka ramadaanka daacaadku dhama la badiya wax kasto la sameeyo ramadaanka sawaabkeedu waa mudaacaf ilaahay kuma yaalka la xoreynayo ilaahay ha nagu daro ramadaanku sidaas shariicadu uga sheekayday nabiga عليه الصلاة والسلام طبعا كدنبه او رمضانك اعتكاف او مساجدك او كو اعتكافو ايو حتى سمي جري الا او كغيريودا لا يري markuu geeriyooda ka bacdina asawjaadkiisa baa i'tikaafi jiray marka bishaas barakaysan oo ramadaanka ah iyo ay leylatu qadar ku jirta bismillaahir rahmaanir rahiim inna annagu anzalnaahu quraanka waxaan soo dejinay ilaahay yiri fi laylatil qadri sharafta habeenkeeda وما أدراك محاك أغيسي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما ليلة القدر شرفتها بين كيد وحيتها وتعظيم وتفقيم لأمرها وما أعلمك يا محمد لا ما ليلة القدر والشرف وعلى سبيل التعظيم والتشويق لخبرها بالليل أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها فضل قيد هذا الشيء يا واكنا مرك ليلة القدر شرفتها بين كيد خير ومتك خير بدن من 1000 شهر كن بلوت حق شرفته حق فضلك كن بلوت اون هبين كاس كجيرين اي كسي فضل بدن تهيبا تنزلوا وحا سو دغوته الملائكه ملائكه ايا سو دغوته ملائكه ايا سو دغودان والروح روح جبريل با لوغا جيدا جبريل با سو دغودا بإذن فيها هبينك دحديسي سو دغودان بإذن ربهم رب جودا إذن كيسي كسو دغودان بلاش كغم إيمانيان إلهي با إذمي
min kulli amrin amar kasta oo ilaahay xukumay la soo degooda oo ilaahay uu qadaray sanadkan ilaa sanadka kale wixii lagu qoray ay habeenka la soo degoonayaan salaamun hiya habeenkaasi salaamun waa nabadgelyo maalinkeeda ilaa waagu ka baryo waa nabadgelyo xataa madlaci alfajri ilaa salaada subax ka dhalato waa nabadgelyo waxaa looga jeedaa ha la yidhi malaa'igtii baa soo degoonaya guri walbay soo marayaan meel walbay masaajidii waxa weeye kacbadii baytulmaqdes duuru siinaa meel walbay ka taaganayaan baa la yidhi ay imaanayaan soo dhoobanayaan markaasi guryihii dadka mu'miniinta ah bay soo marayaan baa la yidhi guri walbay soo maraan masaajidii iyo guryihii iyo ay soo marayaan ilaa waaw ka baryo guri walbay soo maraan waxay malaa'igtu leeyihiin assalaamu calayka ayuha almu'min waa nabadgelya marka habeenkaas waxaan khayr ahaynba ma socdaa la yidhi khayr bisaa socda malaa'igtu waxay salaamaan mu'miniinta walaa yuqadiru fiiha ila alkhayr waasalaama libani aadam saalimatun laa yastadiicu fiiha shaydaan an yacmala fiiha suu'an walaa adan baa la yidhi shaydaanka iyo balaayadu iyo habeenkaas inay waxba sameeyaan ma awoodaan waxa dhan waa laga istaajiyaa sharta ilaa khayrka bisaa soconaya baa la yidhi marka waa habeen noocaas oo fadli badan waa inaan ku dadaalnaa oon ka faa'iidaysanaa awqaadaas fadliga badan oo diintu ay noo caddayday